salaan iyo bogaadin soo jeedinaya gudida qabanqaabada shirkanna iyo hawlahan ay waayadanba ku mashquulsanaayeen si runtii raganimo leh xilkasnimo leh iyo halka u soo gaarsiiyeen qabiil ama Soomaali ha noqdo ama qabiil kale ha noqdo hawlaha halka la raba in laga maamulo siyaalaha qaarkood bay dib ku tahay qabiilku inuu u dhaqmo hawshiisa uu uga doodo wax isugu sababeeyo iyadoo taasu jirtay haddana si aad iyo aad u fiican oo qiimo badan hawshan ay u bugteen waa ku mahadinayaa waxaan iyana ku mahadinayaa culamaa u diinka oo marmaray xoogaal xagal daacay runtii door fiican arintan ka qaatay waxaan kaloo iyana ku mahadinayaa kuna bogaadinayaa gudida sagaalka ah beesha ah ee magaalada Laascaanood hawsha badan ka wada waxaad moodaa iyaga qudhadoodu inkasta oo shirki markuu bilaabmay mindhayna iska hawlo bateen oo Laascaanood aadeen haddana ilaa shalay intay soo noqdeen door muuqday ku yeesheen sida shirku aynu ugu guuleysanayno aad iyo aad baan iyakana ugu mahadinayaa cuqaasha iyo ningarboodka hawsha tan inala qabtay ama sooba waday soo daadahaynayay waajibkooday guteen aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin garaad jaamac garaad cali waxa weeye garaadkii beeshan siyaalaha qaarkoodna si loo kala saaro maxaa dhaqana maxaa siyaasada ma sahlana arintaas waa arin ay runtii tahay waa iskala kaca ku fidoonaa laakiin danteena ku jirta mar walba in loo dhiifoonaado beeshanu kaligeed jasiirad ma meel kuma noola dhulbahantana meel jasiirad ma meel kuma noolaan karo waxa inagu xeeranna ama dalalka aynu dariskana ama kuwa ajnabi oo dalka Itoobiya oo kala ah yay tahay inaynu la dhaqanno waxaan rabaa kumana laabtana ugu garaacan mayno guulaanu keenay haddaanu khaatumanahay isleeyahay khaatumo hawsheedii waa gudatay waana ku guuleysanay dabkaasu inuu inaga damo waxa door ka qaatay haddaynan rabin inaynu cidda mudan waxayna la qabteen inaynan xusin Somaliland haddayna ahayn dhibaatada innaka iyo khayr cabdi ina dhex taala ma ay suurta galeen Somaliland maamulkeeda iyo intii hawsha wax ka qabatayna waxaan jeclahay inaan ku mahadiyo waa u ognahay arinta khayr cabdina ana waxaan leeyahay si gaar ah fardaha arooriyo xamara iniq baharar same inay isxilqaanto baharar same inay iyadu inta ay hadda yeeshay nabadii baan qaadanay oo inamadayadii waa xakameynay waa run laakiin in lagu daro sidii dadka aynu tolkanahay ee wada degno ee meel aynan kala tegayn arintooda in si fiican looga bogto waxna laga qabto culimada qudhadoodu arinta iyakaaba budhigayaal u ahaa Somaliland iyo maamulka khaatumaba ciday mandate-ka siiyeen waxay ahayn culimada ama ahaadeen kuweenan halka maanta inala jooga ama ha ahaadeen kuwa Somaliland ka yimi anigu arinta malihi indhaha laga qarsado arinta Umar Maxamuud laakiin ninkii la yiri dhowr hoota ku yeelay oo mid halkan dhafoor kaga taalay oo mid bawdiyaha kaga taalay gacmaha kaga taalay markaas la yiri warsidee waaba intan oo dhan sida lagaaga saarayo sidee mudnaanta yaan siinaa mudnaanta wuxuu yiri baltan badida igaga jirta baltaa iga saarasaan horta bal u fadhiisto waroy nabadda qayaad haddii wax la kala horeysiinayo anigu waxaan qabaa taa badida inaga jirta ma aha micnaheedu taa Umar Maxamuud inaan
wax laga qaban. Hawl badan baa laga qabtay, shirar badanna waa la galay. arrimo culus oo sababaynaya dagaalkaasuna waa jiraan. arrimaha haddaan xal loo helin walle dagaalkaasu waa soo noqnoqon doonaa. arrimo siyaasadeed baa ku laban. Ethiopia dhulka laguba dagaalamaya xaggu u badan yahay. Puntland baa ku laban. arrimahaas sida loo odhan karo waa uun dhaqan. aniga waxaan qabaa inayn dhaqan ku ekayn. arrintaa in loo dhiifoonaado haddaynu innaku dadkii dhibaatadan ugu badan iyo intanoo dagaalla ah xidhiidh fiican oo soo jireena Ethiopia lama lihin. innaka iyo Puntlandna arrimo culus baa inaga dhaxeeya. arrimahaasuna mid walba waa taabanaysaa nabadda sidii wax looga qaban lahaa, sidii xal loogu heli lahaa, sidii looga digtoonaan lahaa inaynay nagu soo noqnoqon. waxaan jeclahay inaan wax yar ku soo dhowaado shirkan lagu qabtay lagaga dooday oo qabaa'ilku inayn isku mashquulin baa jira. hawshan deegaanka environmentka qabaa'il ka hadla badanaaba dee waana lamaad guuray bal aan dadaaloo dhuxushayayna gubin muxuu dhirtayayna gubinano dhuxul badanaaba dibadda loo diro yaynan dhirta iska marin. laakiin cid shirkan oo kale iyo ka horba isku mashquulisa waxaan u malaynayaa hadda warkoo dhanna ma wada hayo in cidaan beeshan ahayn inayn jirin. waxaan qabaa adduun weynuhu wuu u soo jeedaa arrintaa environmentka, laakiin arrintu kuma dhammaanayso innaku inaynu go'aanno un ka gaadhno oo qodobo ay ka soo baxaan. arrintaa waxa laga qabto, taana ha laga qabto, taana ha laga qabto. waxaa loo baahan yahay adduunku habbuu xidhiidhka ku yeeshaa, habbaa dhibaatooyinka haddii wixii la qabanaya loo tiltilmaamaa, hab dariiqyo loo maraa jira. arrintaas waxaan isleeyahay aad bay muhiim ugu tahay. war ama buur ahow ama buur ku tiirsanow. war waa layna xereeyey. war dhulkan waxaa la yidhi waa dhul nabadiba ayan ka jirin. Somaliland heshiisyada aanu la galay waxaa ka mid ah hadda welina Somaliland kama aanan mid noqon. Somaliland hadda weli kama aanan mid noqon. wada hadallaan noo dhaxeeya, heshiisyaanu gallay. war haddaanan anigu dee aanan waxbaba fahmin una malayn maayo maankaygana waa qabaa. war Somaliland weli kama aanan mid noqon. waxaanuse heshiis ku nahay Somaliland la wada leeyahay oo cadaalad ku dhisan, oo sinaan ku dhisan, oo arrimo culculus la rabo in wax laga qabto. haddaynan innaku taa u wada gurman xaggeenna sidaa hadda laleeyahay wiilasheema aan xakamayno. war haddaynan innaku arrintaa iimaansan, waana ku mahadinayaa shirweynahan iyo kii kala baydhba in la yidhi wadahadalladii Khaatumo iyo Somaliland iyo heshiiskaa la galay waa taageersannahay. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. waxaase aan u baahannahay war meesha Hargeysa la yidhaaho iyo waxaan filayaa Garowe iyo Xamar, war meelaha waa la wada hobshaynayaa. ummado dhan baa marna xaggaa u sii socda marna xagga u soo socda. war bal meesha ay danteenu ku jirto, war arrintan mashaariicda ee taa ay kow ka tahay environmentku, war innakoo keligeen mudhmudh leh cid waxay nagala qabanaysaa ma jirto. waa joogaan meelaha kan hay-ado ama NGOs laga yaabo arrimaha inay wax ka ay sameeyaan, balli qodaan, lagaba yaabo dams yaryar iyo wax inaysan sameeyaan. war arrinta culus ee u baahan maalgelin culus, hay-adahanu haddayan fasax ka haysan dowladaha iyo hay-adahaas dadkooda madaxda ah, war inoo iman maayaan. Somaliland heshiis waa kula gallay
dee intaad odhan lahaydeen meesha fidnaa ka taagan meeshan yaan la tegin hadda bishan Marchna shirar badan oo arrimaha lagaga hadlayo mashaariicda yaa jira sidii taageero buuxda oo aan afka ahayn loo siin lahaa gacanna lagu siin lahaa loona wada dadaali lahaa arrintaasu inayna hirgasho hadda qabya waa halkeedii wax dhammaadayna ma jiraan haddaynan innakuna ka midoobin oo innakoo isku duuban la heli maayo 100% laakiin xooggeenna iyo awooddeenna haddaynan isugu geyn nimankaa garcadaa waan la gelaynaa war garcadaa wadaa ka qayb gasha waa loo baahan yahay war hadda arrintu arrin dhaqan iyo hadal wanaag geedka qudhaca hoostiisa lala tegaya ma ah war niman looyara ah niman culamaa u diin ah niman bii'adda wax ka yaqaan niman siyaasiyiin ah oo haya taariikhdii ilaa 60kii ilaa maanta arrimaheenna ah dad badan oo isku dhafan oo kala manada loo baahan yahay hawlaha inay gasho ruuxaanu kaliga yeelanahay maaha war ciddii khaatuma dhaliilaysay ahlan wa sahlan ama xal kala keen oo reerku sahan haddaad u tahay ama reerku wuxuu ku nagaado ama wuxuu ku guuro mas'uuliyad in la iska saaro haddii tan la aaminsan yahay aan barakaysanno oo garcadaawadaas aan gallo labada aniga wax u dhaxeeya anuu ma garanayo arrintaa xamar iyo qaranka anigu waxaan qabaa oo adduun weynuhuna aad iyo aad buu isugu taxallujinayaa Somalilandna pressure badan ku saartay khaatumo la heshiiye annakoo Hargeysa joognaa wufuud Yurub iyo Maraykan iyo qaramada midoobay ka timi ay u timi labada arrimood ay markaa hore wareysanay waxayna doorashadiina ha dhacdo khaatumana la heshiiye haddana waxa weeye maamulkiinan cusub waa inaad khaatuma la heshiisaan Somaliland sidaan anigu hadda u sheegay aad wada leedihiin oo cidana marti ayaan ku ahayn magana ku ahayn kula heshiiye arrinta kale ee ay adduun weynuhu danaynayaan haddana aad moodaa fikirka Somaliland inuu wax iska bedelay waa xiriirka iyo wada hadallada lala yeelanayo koonfur iyo xamar khibrad badanna waa korodhay 27 sanadood bay Somaliland hawlaheedana ay wadatay laakiin wax ku ictiraafana ma jirin wax ku ictiraafi doonaana hadday Somaliland la wada leeyahayna ayan noqon ma uu jiri doono haddii ayan u jajabnaan arrinta koonfureed na cid ictiraafi doonta ma jirto aniga waa qiyaastayda waxba iska bedelay madaxda iyo raayal caamka Somaliland waxaaba hadda dhaqso loo filayaa madaxweynaha Somaliland iyo ka xamar inay isugu tagaan Djibouti inay ogolaadaan in wada hadalladii la soo celiyo oo waliba wada hadallo dhaba la soo celiyo waxaana shirarku ay ka bilaabmi doonaan wadanka Switzerland Somaliland anigu waxaan qabaa haddayan baahayn waxa quree Soomaaliya u furan hadda waqtigan aan joogno inay tahay wadada loo mari karo qarankii Soomaaliyeed sidii dib loogu dhisi lahaa weligay hadda ka horto 10 casho isku xigta Hargeysa uma hooyan weligay hadda arrimahan khaatumo ko si badan baan hadda u dhaadaa dooda ka socota ma ahuna saxaafadooda laakiin dooda dadka mas'uuliyiinta ka dhaxaysa waxa la qabtaa doodo badan buugag baa la qoraa waa la isaga yimaadaa war wacyigii Somaliland ma aha in la isku raacay 100% laakiin wax weyn yaa iska bedelay raayal caamka Somaliland iyo dadka madaxa political class dadkan hawsha siyaasadeed gacanta ku hay waxaan hadalkayga ku soo koobaya awal baan aniga garaadku waxba iskuma hayn aniga garaadku
waxaan uun xoogaa midkaayaba meel iska taagay arrimo jiro oo inaga dhaxeeya war kuwiina isku afgarannay shirkeennan waana heshiinay waxaan markaa u baahannahay haddaannu annaku heshiinay war bal ciddii qabtay nimankaasu ways hayaan ee aan la kala safanno warkaasu waa dhammaaday warkaasu waa dhammaaday war hadday fardi tahay iyo hadday mid guudba tahay waxaan ku talin lahaa wareerayaalow aan heshiinno weliba arrimaha ina wada khuseeya aan kana heshiinno mar walbana aynu ku hiranno midnimadeenna war midnimaynu wax ku noqon karnaa war arrintaa magahan iyo kuwan la sheegayo iyo culaysyada badane ina saaran war haddaan la madoobin oo aan odayaasha iyo cuqaasha iyo waxa laga rabaa magahan inay bixiyaan aan la heshiin dee hawshana ugu yaraan dib bay u dhacaysaa hadda fidmadiina meeshii bay inoo taallaa anu waxaan markaa odhan lahaa war bal dhowr nin waa allah u naxariista xaaji xasan cali askar la odhan jiray oo carabaha iyo ka soo shaqeeyaa gooray ma aqaan 58-58 dalka ku soo noqday waa oday reer Jibriil ahaa markii dambana xildhibaan noqday wuxuu la soo kulmay meel la leeyahay war shanta Soomaaliyeed la isla raadiyay shanta Soomaaliyeed hal la miday maalintii dambe wuxuu yiri warnimo yahow nin aanu walaalanaha jiro shan wiil leh war shantii wiil baa loo kala taaglaya wareerayaal aynu hawsha ku bilowno shantaa wiil saynu u midayn lahayn ay walaalo ay noqon lahaayeen waalidinkaar aynu noqon war kolley annagu xagga iyaga inta shirkan ka soo baxday haddii ay fulinteeda noqoto u malayn maayo inaanuba isqabanayno inaanba isqaban karno waa u malayn maayo gabdhaha beesha anigu intii aanu hawsha khaatumahaynay aad moodo dagaal joogto ah oo guryahooda dhexdooda xitaa hadda soo galay yaa gabdhaheennu anigu kolley kuwa dibadda joogaan xoogaa u warroonahay war gabdhaheennu horta gorayo la ogaayo haad bay noqotay war raggii Soomaaliyeed ama baharsama ha noqdeen ama ciise ha noqdeen ama ha noqdeen raxan weyne waxaad moodaa haad bay noqdeen gabdhihii baana cidda waddanka gudihiisa iyo dibaddaba haysa state gobol aan joogo Maraykana waxaa wax ka dhigto jaamacadaha ku jira arday ilaa 4500 meelahaas 4500 yaa jaamacadaha gobolka ku jira boqolkiiba 80 waa gabdho boqolkiiba 80 waa gabdho raggii lama hayo war inta badan ee hadda aad moodo inay hoog iyo bay uu inooga ducaynayay Sheekh Maxamuud ragga ku talax tagay ma aha inay jaamacadaha ku jirin war xabsiyaday hadda u badan yihiin tirada marka la eego Soomaalida state-ka joogta iyo numberka guud ee xabsiyada magaalo Stillwater la yiraahdo xabsiga ugu weyn ku yaala dadka ugu badan ee maanta ku jira rag qurama ah Soomaalida waa gabdho Soomaaliyeed horay bulshadana waa burburtay gabdhaheena waa ku mahadinayaa waana u ducaynaynaa waa ku qadarinaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa xilka waa inaga guteenay ilaahay iyakana inuu khayr badan siiyo ilaahay inuu khayr badan siiyo ilaahay inuu caruurta u barakeeyo hadday rabaan inay u bataanna hay u bataan aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkana waa salaamay